wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalka uu maanta ku yimid Dhuusamareeb taliyaha guud ee ciidamada howlgallada AMISOM. Wasiir Ducaale ayaa sheegay in socdaalka taliyaha iyo wafdigiisa la socday uu ku saabsanaa sidii ay AMISOM iyo dowladda uga wada shaqayn lahaayeen sugidda amniga deegaanada Dhuusamareeb oo uu lagu wado in howlgallo dhowaan uu ka furmo shirka horudhaca Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. Maanta halkan waxaa inagu soo booqday taliyaha guud ee ciidamada AMISOM iyo saraakiil la socota, waxaana ka wada hadleen sidii ay AMISOM ay gacan uga geysan lahaayeen sugidda amniga deegaanada iyo shir dhowaan la filayo inuu ka furmo Dhuusamareeb iyo weliba habka wada shaqaynta labada ciidan, ayuu yiri wasiirka amniga Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in ciidamada ay rajeynayaan in ay kaalin weyn ka qaataan horu socodka Galmudug si loo dhiso Galmudug oo mideysan iyo sidoo kale qabsoomidda shirarka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug. Ahlu Sunna wal Jameeca ayaa u diidanay deegaanadeeda ay ka arrimayaan in la keeno ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa AMISOM, balse haatan waxay u muuqataa in arrintii hore ay ka soo dibceen ururka Ahlu Sunna wal Jameeca. Waxaana la filayaa in dhowaan la geeyo ciidamo AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya si halkaasi ammaanka looga shaqeeyo.